السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي كسر بعض بلاشي نجمع كتبال أميرة. يو ويلكم يا حيو والسهلا. تفضل سكرايبك ليك كومنت معاك بدن وادنكين dadkii hore ugu jira dadka cusub kusoo dhawaada dambaleelka taaw sida qofka koowaad u naqatay oo saaxiibka mis saaxiibada ku share garaysa. Abonnieren, weiterleiten, Like machen und bei Kommentare, wenn ihr euch was wünscht, dann schreibt ihr bei Kommentare. أصحابتي قالي horta meeshaan waxaa ku badanaa inta leebita bakin ukun cusbo sokor wax yar saliid biyo galeeda jaalaha bur ayaa meeshaan ku wadanaa. marka waxaa u baahanahay hal bakeer inaa inta ku shubto galeeda jaalaha baxdeen inaa cabirto bur inaa cabir ayaa u baahanahay. marka si fiican aan badan ila socda maasha allah waan ujeedin. marka laba bakeer bur ayaa sii cabiraa haddana afka doojka ahaa ku sheedaa. So, jetzt haben wir da sind Backpulver und Hefe, ein Ei und da ist Öl, da ist Wasser, da sind Zucker und Salz. Und jetzt hatten wir da die gelbe Mehl, Maismehl und dann noch eine Tasse Mehl, die weiße Mehl. Und jetzt mixen wir alles und dann zeigen wir euch, wie wir es machen. marka asxaabtay qaaliye hadda marka waxaan kusoo daraa galeeda jaalaha bakeer kale ayaa kusoo darsanaa. marka asxaabta qaaliye maanta maxaa dubaa saa u kasaysiin muufada misqubis saa u kasaysiin qofba siya u kasaa maanta rabaa inaan sameeyo oo dhaxda oo ku shuwaayo kalluun iyo qudaartiisa bataati oo ka gelinayo ku duwaayo oona basiid aana ka heli doontiin. marka waa kasadana bakeeri labaad ayaa kusoo daray. marka halahaas waa uu filan yahay. marka sidee ayay walaashin dubaysaa beel amiira kor ayaa ku dubaa wax furan ma gelinayo wax ma gelinayo saas ayaa isku qasay. markaas isku qaso marka hadda markaas isku qaso maxaa hadan ku daraa cusbada ayaa ku daray sokorta si fiican ayaa isku qasooyay oo isku dhex gelinaa. baxdeen hadan maxaa ku daraa leebitada iyo ukunta dan af Deutsch oo lagu turjumaa. Also jetzt haben wir gemixt die gelbe Mais und jetzt haben wir hier jetzt die Hefe, machen wir auf alles auf einmal und da ist unser Backpulver. أصحابتي قالي هدر waxaa ku daraa hal qaando oo bakin ayaa ku darsanaa. bakinka laasima u baahanahay bakinta wixii ka dhigay jileec doolsha camneed laasima inaa ku darsataa. bakinka wax dhib ay keenaysa ma leh. hal qaando iyo nus ayaa ku darsaday. marka bakinka yaa loo maleynin kaliima loogu talagalay muufo iyo khubus iyo marba dee geley ay ku jirto waa ku samey kartaa wax dhib ay leedahay ma leh. aan u maleynina inay dhib leedahay asxaabtii aad jeclahay ma fahanteen sababtoo jileecay ka dhigaysaa mana halaaway asxaabta aad jeclahay hadan afka doojka ku turjumaa. Ihr habt schon gesehen, jetzt haben wir unser Eier und jetzt tun wir jetzt unser Öl da rein und dann mixen wir es. asxaabta iyo waa ku isku dardaray waa ujeedin. hadda marka waa qasaa biyaha ayaa ku shubtay sababtoo marka wax yar ka bacdi intoo ka khamiiraayo qudaartiisa sameynaa oo dhexda ka gashan lahaay insha allah qofkii kasaa waaba kasaa
qofkii ka siin waxaan rajaynaa inuu ka heli doono. marka shaaha lay ku cab waaye aad iyo aad u fiican yahay wax dhib keenayna ma leh. marka waa ka sii asxaabta qaali qadada ku dhahay maasha Allah mise casho ku naqanaa saacadii aa ku cunti aday ku xiran tahay. marka waxa fiican shay khafiif ka leh afkini la gidisto oo loo sameysto qado oo imaan walbaas isna cuni kara ma leh asxaabta qaali. marka wooba ka hor imaana noloshiyaaba saas iska naqatay. marka waa kas asxaabtay qaali isas waa ina عجمة مركز عجمة عبار وإسكو حجلسي بلاستيك أيا كدبونها خضارتي سكالوا إنا سميا بطاطي كلونا قشنا هلبوا قش كرتا جكن واقلي كرتا هلبا شيشيدن واقش كرتا معناها لازم ما أكلون كلي إنا قشتي مركز وحي أدي أجعشهي أكو عني كرتي أقش كرتا. marka aan usoo jikin hada kor waa sameeyay maasha Allah janalkii wuu ku jiraa ramadaanka sameeyay. marka maanta xaraba usoo kaluun inaan sameysto marka oo dhaxda ka geliyo. marka kaas asxaabta qaali aad jeclahay marka soo dhawaadahay kana sana isku dhex geliyay bis waaye wax kale ma dhimno inta ka khamiiraya suudana واسكو سونا خلينا أصحابتي أجعله تخالي وكان هرت خضارت صوص سمي صوص جرجري كان وحواد بربروني هل حبوا لي اسكده كان نجاح كسو جرتي لبا حبة أو لبا كلر هواية وجح كسو سميستي كان وحواد بطاطي فيخدي يريريستي كان وحوا كبسر علين أسوق جوستي كان وحوا لبا حبة بصل أو صوص سميسته سوق جوستي لبا حبة تونو حبة طماطم وايه انت نحا يجرى حباجي كارا يو جبو يو اسبو انت وحوا سليد ير marka intan ayaa rabaa inaan isku sameeyo saliid inaan ku badiyo marraba way gudaha ka kashinoyaa هادو gudaha cajiini kana qanay ma loo baahno way bacaqina qanay ma la rabo. marka saliid waa ina iska yareysa qudaarta marka sameynayso sababtoo waa ku dhex duwanaa gudaha kashana oo ku dhex duwanaa marka in la caad ma sha Allah macaan tacamkiisna ma ka sheekay kartay qofkii ka saarto waa ka saa qofkii ka siinay walaalaha waxa jeclaa in jaabsina daf dojka ku turjumaan. Also jetzt haben wir da eine ganze Paprika, also gelbe, eine Hälfte gelbe und eine Hälfte orange. Und da ist Zwiebel, also eine ganze Zwiebel geschnitten. Man muss es klein schneiden. Du kannst einfach nicht so schneiden, sonst geht das raus. Und da ist Maggi und da sind das gelbe Curry. Und da ist auch Salz, also alles muss gemischt werden. Da ist Öl, also ein bisschen Öl, damit man ein bisschen kochen wird, weil das wird dann ein bisschen so zu Mehl. Und da ist ein Tomaten, geschälte Tomaten. Du musst warten, bis es ein bisschen heiß geworden ist. Und da ist diese grüne Dinge, die gibt es. Und da ist das Thunfisch und da sind zwei. Du musst mit dem beide machen. Also alles da machen wir rein und da sind geschälte Kartoffeln. Da musst du warten, bis es also alles so gut gemischt ist und dann wird es durchschmecken. Und da sind alles schon unsere Sachen, die wir haben. Und dann machen wir alles auf dem Mehl. Und dann zeigen wir euch, wie wir es kochen. Ihr werdet das sehen. أصحاب تقالي مركز حاسو قادة سليدة أيا كشونا وجدين أدنى وكلاتي مركا أد مرك سليدة مركا كشوطة وحاسو خبصنا بطاطية أيا سو خبنا مركا بطاطية أيا تكودوا بطاطي تكون إنها تجيبوا واي بيح كثير كصميرة
bataati markuu ii bislaado markaasaa wixii kale ku darsan karaa oo hadda ku bataati si fiican inaa u kariyo waaye oo u dubo marka asxaabta wax iska basiidsan waaye waa sameyn kartaa guriga adeegkeeda wax dib ee leedahay ma leh marka maxaa loo baahan yahay amshi waxaa loo baahan yahay wata ku inaa dagaal badan aa muujisid markaas waxyar waa dheereysanaa kuwa iska daawiye bataati waa hada ku inaa iska duwaa marka kasta yar saliid ayaa bataati ku duway marka bataati markaa dubo ayaa marka waxyaalihii kale ku darsanaa marka asxaabta qaali ee wax oo micnaa iska dhib badan ma aha wax oo iska basiidsanne waaye insha allah inaad heli doontinaa rajaynaa asxaabtii qaali aa jeclahay intii kasaa waba iska kasaa wax iska oo wax waaye marka amishii cajiinka markaa sameynaysa kaliya ayaa loo baahan yahay inuu dhexda ceeriin oo ka naqanin hadduu dhexda ceeriin ka naqanayo marka qof cunaayo maleleh marka bataatiina saan usoo goosta khafiif waaye aa usoo fiiqday ma culuso waa inaa khafiif aa ka dhigtaa aa yaryareysaa waa gudaha gelinaysaa marka waa kaas markaad asxaabta qaaliga ah marka waxaa ku daraa cusbadiisa iyo maajigiisa iyo wixiisaa ku daraa bataati waa inuu gudaha iyo qaataa marka al ahaan le hadda isku daraa isku gedgedinaa wixii kale ko ilaw midiyo sheekada marka waa kaasa asxaabta qaaliga ah waa horta inaa halahaan si fiican aa usoo kariyaa saas maanta dhan u gedgediyaa soo u karo bataati wixii kale markii oo ku dardaraayo waa isku soo naqanaynaa asxaabta marka waa ka bataatiyana maasha allah saan ayuu kusoo karay waa ujeediin wax u dhiman ma leh marka waa kaas markuu karo geed kale hadda marka waxaa soo qabsanaynaa bashasha aa ku darsanaynaa bashash waa inaa cabaar haddana aa ku gedgediyaa oo karaa oo dilaa markaas seyti ayaa haddana wixii kale ayaa ku darsanaynaa marka waxaa loo baahan yahay bataati horta si fiican waa inaa saliidda le oo ku karaa marka hadda haddana marka maxaa isku karinaynaa bashashi iyo bataati haddana isku sii gedgedinaynaa cabaar waa inuu isku gedgedisaa waayo cajiinka ayaa gudaha ka gelinaysaa marka waxaa loo baahan yahay shay markuu karsan yahay oo gudaha ka galaayo marka wax oo wuxuu naqanaa oo yar laakiin markuu shay oo sidiis oo yahay cajiinka inuu kasoo dhadhaxbaxo alaa yaabaa ma fahanteen asxaabta qaaliga ah marka waa inaa haddana isku kariyaa marka haddana afka doojka ayaa ku turjumaa asxaabtay. Also wir hatten jetzt unser Zwiebel da reingemacht. Jetzt seht ihr, wie es aussieht. Das Kartoffel ist schon gekocht, jetzt nur noch das Zwiebel. Wir müssen nur die ganze Zeit so weiterrühren mit diesem großen Löffel, weil bis es gekocht ist, so wie Kartoffel, die ganze Zeit einfach so machen. Dann zeigen wir euch, wie wir es auf die andere so reinmachen. Ihr seht ja jetzt, die ist schon fast fertig. Und jetzt noch die andere Sachen gemacht wird. marka asxaabta qaaliga ah markii oo halahan oo isku soo gedgediyo bashasha oo soo kariyo ayaa isku soo naqanaynaa video in uu dheeraanay ayaa diiday asxaabtii aan jeclahay qaaliga ah waa koo ujeedeen marka hadda waa qabsanaynaa barbarooniyana ku shubanaynaa marka kaluunkeenana waa ku darsanaynaa marka barbarooni waa inaa cabaar aasas ugu gedgedinaa usne oo maasha allah oo karinaa marka waa kaas wax iska basiidsanna waay waan ujeediin marka asxaabtii aad jeclahayo marka waa kan maasha allah hadda marka waxaa soo furinaynaa kaluunkeena saliidda waa inaa kasoo miraa waayo wax saliid aynu u baahnay marka waa kaas asxaabta dan afka doodka kajimaa. Hier ist es unser Kartoffel und die Zwiebel schon gekocht und jetzt das Paprika. Und dann tun wir es den Thunfisch rein und dann weiter rühren, dann wieder es, dann Tomaten, dann ist diese grüne Ding. Dann ist weiter, muss man weiter rühren, du musst warten, bis es gekocht ist. Man kann als Nachmittag essen oder im Nacht kann man ein bisschen essen oder im Morgen. Also als Frühstück kann man auch essen.
marka asxaabta waa saliidda waa kasoo miiray oo kalluunka waa ujeediin marka kalluunkeena ayaa hadda ku bedsanaynaa marka maasha allah wallahi qalab fudud oo macaan badan waaye marka waxay ku cunaysaa kashka manineska abuntoonka marka ku cunaysaa adiga ku xiran tahay waxaa ku cunaysaa sibisbaadka miswaakasa asxaabta wax alla wixii rabtaa ku cuni kartaa marka hadda waxaa yeelaa kalluunka ayaa ku daraa labada gasac tamaatamka kor ayaa ugu darsanaa marka tamaatamka ma rabo inaan kusii kariyo zaid ugu kariyo tamaatamka iyo kabsar caleenta kor le ugu karinaa marka markaasoo ujeediin laba gasac ayaa ku samaysanaa laba gasac oo ugu filan yahay waay dhexda ayaa ku gashanayaa marka okay waaye wax oo dhib ma aha waa ujeediin marka labada gasac ayaa ku gedistay marka asxaabtii qaali ee labada gasac ayaa qofka ku gedisanaa waa ujeediin waxa iska basiidsan waaye ma samay kartiin maasha allah waa aad iyo aad u macaan yahay markii la cunayo xataa tacankiisa wax dhib badanna ma aha haddaa u baahan tahay casho ahaan waa u samaysan kartaa haddaa u baahan tahayna qada ahaan waa u samaysan kartaa laasin ma aha micnaha qada ahaan muu cuni karaa mise casho ahaan wixii rabtaa waa isticmaali kartaa adaa og dooqaa marka wax loo baahan yahay amishee marka inay samaysato qada ahaan lee ku fiican waaye anaka wadankii ma joogni cashada oo ii sheeg ada waqti dambe iyo oo saddexda waqti la cunayo ma joogni marka waxaa loo baahan yahay qada ahaan inaa iskaga cunto tamaatamka haddana ku bedistay marka waa ujeediin tamaatamkan dhedhana u yeelaa hal xaboo ku darsan kartaa daarabtan waa iska dhaafi kartaa marka aday ku xiran tahay saa u samaysanayso marka asxaabta waa ujeediino saa u sameey marka wixii oo dhan saa isku dardaray marka kasar caleenta haddana ku darsanaa wax yar ayaa ku gedgedinaa marka markii wax yar aa ku gedgediyo marka waa inaa oo dabooshtaa oo ka dejiyaa waa kasar caleenta waa tuma kartaa daarabta waa jarjara kartaa markii la jarjaraayo jecla kasar caleenta ma fahanteen asxaabta markii la jarjaraayo jeclahay ma soo tumanin waa soo jarjarta kaliya marka haddaa u baahan tahay waa tumane haddaa u baahan tahayne waa jarjaranay aday kugu xirantahay haddaa u baahan tahay jumliya dhexda ka gashanay haddaa u baahneen ma ka gelinayso marka asxaabta aday kaliya ayay kugu xirantahay sida aad ku samaysanayso marka waa kaas asxaabta wixii oo dhan saana u samaystay marka haddana waxaan rabaa afka doojka inaan ku turjumo markii aas fidinaayo asaa u duwaayo jumlihiisa u gashanaayo kul markaasna u kusoo naqanaynaa Also jetzt seht ihr, also das Tomaten haben wir reingemacht und diese grüne Ding ist schon fast fertig. Die Paprika ist auch fast gekocht. Man auch, wie ich gesagt habe, man kann als Mittagsessen oder als zum Abendessen. Und dann brauchst du nicht so viel kochen, das ist ganz einfach. Das geht nur schnell zu machen. Und dann sehen wir uns und zeigen wir euch, wie ihr das reinmachen und mit dem Mehl. انت اصحابتي وهكاسه واسكسو نقنينا للسعودة اصحابتي نقالي اهواك وجيدين سيدو usoo khamiiray ما شاء الله marka intan waxaan ku wataa wax yar bur oo inaan ku fidsado u baahanahay meeshaan wax yar saliid ayaa ku wataa marka burka waa inaan sas laasim inaan ku fidisa u baahan tahay marka waa saani ayaa usoo goosanaa waa ujeediin marka kuuskiisna zaid ina weynaysay ma aha qiyaas inaa ka dhigta waaye marka waa ujeediin asxaabtay qaali waa kaas waana meeshaasoo kusoo shubanay khudaarteena aan samaysanay marka asxaabta qaaliga ah waa ujeediin soomaa marka wax yar oo micno lahayn ayaa fidinaa wax yar horta ku fidsanaa marka wax yar saas u fidsado
fiditaan weyn ma aha marka hadda marka maxaa sameynaa qudaartay ayaa soo qabsanaa waa u jeediin saas ayaa dhexda ugu shubanaa marka qiyaaskaayu ku xiran yahay marka qudaarta zaidne aa ugu badinin marka saas ayaa isku keenaa oo u jeediin saa isku keensanaayo halkaas saas ayaa loo baahan yahay inuu isku imaado marka ujeedi inuu furmo ma la rabo intana inuu kasoo baxno ma la rabo intana inuu furmo ma loo baahano marka tartiibna waa inaa ugu xaxadaa mush ma aha xoog inaa ku fidisay ma loogu talagelin tartiib waaye qudaara gudaha ku jiraa fiditaan oo been le waaye marka tartiib waa inaa u fidisaa ujeedii sooma asxaabta qaaliya fiditaan oo been le meeshaan ku heeyaa xoog ma u fidinooyo haddaa xoog u fidi qudaarta dhan ayaa banaanka iya soo baxaa marka ma rabo qudaartii dhan banaanka inuu usoo baxo marka ujeedii sooma marka dan saas ayaa isku keenaysaa tartiib هذا مر لبات ترتيب أي أو نقيسة في التانكة مكواكس يا أصحاب تقالية وجيدين انت قليل الربا في التانكة بين إنه هذا الربا مش حوق إنه أفيد السي حوق وأفيدنا دي الخضار تيونا بنانك أيو كالصبحة ملو باهنا مركا بنانك إنه صبحه marka waa kas asxaabta marka waxa sameeysanaa saliid yar ayaa marsanaa sa u jeedin taawada wax yar saliid waa inaa iska marisaa marka doo soo qabsaneynaa waa kas u jeedin soma asxaabtii ajala marka waa kas hadan keek kale ayaa fidineynaa marka saan waa asxaabta qaaliye marka saan leh u sameynaysiin wax weyn ma aha wax iska basiidsan waaye oo maleynina wax weyn hadii cajiinkana kab oo badsatay waxa la yaabaa inuu dhaxda ceeriin ka naqdo ma loo baahan inuu dhaxda ceeriin ka naqdo sababtoo waxa loo baahan yahay cajiinka kuskus inuu oo qiyaas ku ahaada oo ujeeda kuskus soo yahay burka marka waxa waa inuu ku fiday waa كستوير سي أحد يبغى قشة أو باهنهاي مركا واحد إسكاب السيت سنواية واحد بدن معها أملينين إني بدن تاه ما بدنا مركا خضار تاه سوق بسنين بدها كشوبنين مركا ما شاء الله الما حتى سووا عنايان مليكرتين أصحابتا يا هكذا حيكون عنا إيك حيج علي إنك عنا كشف إنك عنا نيج علي هذا أفكار دوتش كأها كترجمة. So ihr seht ja jetzt unser Mehl, wie das aussieht, gemacht wird. Du musst so ein bisschen, ganz bisschen nur Mehl nehmen und das Teig soll auch so sein und dann musst du aufrollen. Dann machst du so, dann denkst du alles so. Du sollst einfach so decken. Und die Gemüse ist da, also haben wir unser Thunfisch und die Kartoffel, Zwiebel und Paprika haben wir auch da. Und dann machen wir auf dem Pfanne Öl bisschen, dann tun wir es da rein. marka asxaabta marka waa ka soo jeedin marka tartiib waa ina horta ku adiga gacanta ku sintaa marka gacanta ku sintaa wax dhan ku toosaa xoogna ma loo baahna ma xooda oo fidina ma ah qudaar gudaha ku jira qudaartas inay beerdarooda ma loo baahno oo wixii oo dhan isku khasmo marka tartiib ayaa loo baahan yahay ma fidinooyo la rabaa in loo murmo ma faanta asxaabta qaaliye marka waa kaas wax iska basiidsan waaye wax iska dhib badan ma aha waan u jeedin ma sha Allah sidee tahay marka kaas asxaabta qaaliye soo dhawaada markaad waxaa diida video weyn zaid inuu igu sii dheeraado
marka korna wax yar saliid ayaa sas ugu marinaa waa ujeedin marka hoos la u gadinaa saliida kor waa inaa sas marka umaris hoos u gadistaa sababtoo saliid kalma u baahan saliid oo hab ku shuwaay ma aha wax yar inaa kor oo qabto marka markaas marka tartiibtiisa waa inuu u karaa waa ujeedin marka inta xataa guduud kale zaa'ida u sii dhiman marka saan kaliya ku dhaafaayo umaleynaysaa inaan ku dhaafaayo marka horta labadaas xab jumla ma ku daraayo jumladina hadda ku keensano qaali waa ka soo ujeedin sidoo ku soo baxay maasha Allah marka jumliyaneeti xabadaas ku bilaabay labadaas hore ma ku jiro kuwan kale la raba ilmaha inaa ugu daro hadda u baahantaa ku darsan kartaa hadda u baahantaa kuma dari karto way aan u baahan inaa cuno jumliya marka waa kaas soo ujeedin hadda marka saan le waa si basiit ahna waa ujeedin wax dhib badan ma aha u maleynina inuu dhib badan yahay marka laakiin wax loo ku xiran yahay inaa si fiican u fidisay marka wax oo wax ma aha jumlina waa kaas saa korka ugu sii saaraa marka ilmaha aad u jecel yihiin marka ilmaha ugu daray marka inay cunaan jumli aad u jecel yihiin markii wax lagu daray si fiican ay u cunayaan marka amshi inta tartiib waa ina u xirtaa marka waxa loo baahan yahay horta koo gacanta waa ina ula raacdaa si tartiib markaas oo qodi burfidiska uu leeyahay hada gacanta koo ula raacin waxa dhici karaa qori burfidiska inuu iyo ka dhambalaayo dhici kartaa marka qofku rabo jumli waa ku darsan karaa qofku rabana ma ku darsanaayo kasab ma ana ku darsatay adeeg ku xirantaa kaliya marka hada u baahan tahay aad jeceshahay waa ku darsanay hada u baahnayn aad jecleen ma ku darsanayso daruur ma aan ku darso inaan ku dhaho marka waa kaas waan u jeedin sidoo yahay ma sha Allah marka wixii soo dhan gudaha ka wataa wax oo dhib lehna ma aha marka tartiib waa inaan qori uu xadaa xoog looma baahno xoog oo fidinaa dhexda ka dhambalaa dhexda ka dhambalma khudaartii dhan khasaarayna qani marka ma loo baahan xoog ina u fidisi si tartiib kaliya loo baahan yahay marka ma sha Allah insha Allah waxa rajeynaa inaa ka heli doontiin asxaabtii aad jeclahay oo janalkeedu ku xiran marka waa ka asxaabta qaaliye waa ka ujeedin ma sha Allah sidoo ku soo baxay geedkeen ma sha Allah tabarakallah marka wax iska fudud iska basiitsan waaye marka waa sameey kartaa guriga dhexdiisa adiyo meel aad sameyn marka waa ka asxaabta dan waxa ku sii turjumaa afka doojka marka asxaabtii qaaliye ku soo dhawaada So, hier ist es unser Alu-Prakata und da ist schon fertig, jetzt mit dem Ketchup, Mayonnaise und alles so da drauf gemacht. Die sieht es so aus und haben wir alles mit dem Gemüse da rein gemacht und ist schon fertig gemacht. Jetzt sieht die aus. marka asxaabtii qaaliye wixii soo dhan gudaha ku jira hada u baahantahay saakaliye ayaa u jiranaysaa marka umaleynina micnaha wax iska basiitsan waaye wax dhib badan ma aha marka isdhihina wuu dhib badan yahay ma dhib badna marka asxaabta aad jeclahay marka waa ka wixii soo dhanaysa soo gudaha ugu jira waan u jeedin sidoo yahay munineskiisa iyo wixii soo dhan munines kale iyo dhahay wixii soo dhan soo gudaha ugu jira waa kaas marka asxaabtii qaali aad jecla ku soo dhawaada walaashiina Bella Amira channelkeeda meel alla meesha joogtiin share like comment macaanka badan waa dhankiina asxaabta qaali ee u jeedin ma sha Allah tabarakallah sidoo yahay marka waa kaas asxaabtii qaali ee wada jecla I love you meel alla meesha joogtiin ilmana iska joogaan marka
Bye bye.